السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وادين سلامي رير سوشيال ميديا ميل كستو دونيدا joogtaan waa walaashiin oo idinle kusoo dhawaada aaladaydii yarayd ama meeshaydii yarayd ama daaqadaydii yarayd marka mar walba waxaan jecelahay inaan wax idinla wadaago ama wax idin soo bandhigo laakiin caaway bilaabanaysaa awal hore may jiri jirin xumad meelaha ka ararki jirteen laakiin wax toos ma jirin laakiin haddaan rabaa inaan wax toos ah balidiin soo daayo allahna ay la garab qabto waa hadduu khayrku iigu jiro haddaanu khayr iigu jirna allah iga qabto marka wiilkaygaan rabaa inaan hadda wax weydiiyo ilaahay baa iska lehe yaaquub hooyo social media ma wax wanaagsan baa mise waa wax xun wax wanaagsan iyo wax xun muxuu ku wanaagsan yahay muxuuse ku xun yahay hadba waa sidii loo isticmaalo hadba waa sidii loo isticmaalo idin dhahay yaaquub waa runtii haddaa wanaag loo isticmaalana wanaag buu noqonayaa haddaan dee xumaan loo isticmaalana xumaantuu noqonaya laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa intii wanaaga u isticmaasho inuu ilaahay naga dhigo aamiin dhahooyo aamiin yaa rab marka dhammaantiin soo wada dhawaada subscribe like comment share caaw maxaan yaaquuba kusoo qaadanaynaa showgeena ama bandhigeena ama golaheenan yar iyo daaqadeenan yar gabadh dahabkaada way lumisay gabadhii dahabka kaa lumisay sheekadii gabadha dahabka iga lumisaan kusoo qaadanaa soo maaha sheekadaasi waa sheeko wadata aragtay cibaaradeeda marka cibaarana way idiin noqonaysaa experience and dee kuwaana qaadashana way idiin noqonaysaa marka anigu caqligan maanta leeyahay haddaan shalay lahaan horta caqliga maanta aan leeyahay haddaan lahaan lahaa maalinta maan dhiibeen dahabka xaflad yar baa cashaan samaystay xafladii baan sid yar oo waxaan xidhay sodohda ay leedahaan dhakab isku siiyey waan haystay runtii dahab laakiin waxaan jeclaystay waxaan weli laygu arkin inaan iska xirto oo dahab yar oo iska qurux badan buu ahaa dhakab baan isku siiyey gabadhaba oo dariska ah oo aniga intan aan hadda leekahay leekayd oo dee ani idhali karaysay macnihii ayaan siiyey marka ii weydiisatay waxay tiri meel baan tegayaan kasoo noqonayaa gobolada soomaaliya kamid ah runtiina dahabka iyo wax kasta waa la kala qaataa soomaaliya waa la kala tobar caaraystaa qurbaha lagama yaqaano oo lagugu caaya dad qurbaha weydiisato qof wax laakiin wadankaas waa la kala dadku waa dad iska nadiif oo isjecel oo wax kasta kala qaato wax kasta kala xidho bas markaasaa waxaa dhacday dahabkiibaan maan odhan sodohda baaliya kan baale dhakab baan ku siiyey dhakab markaan ku siiyey gabadhii way la baxday waxaan walaalay 7 beri ka badan hala maqnaanin waxay tiri 7 beri baan maqnaanaya ka badan ma maqnaanayo gabadhii 20 beri bay maqnayd anigoo dhuunta farta ku hayo isla dahabkii goormay lagu weydiin oo lagu odhanayna dahabkii aaway maalin maalmaha kamid ay ugu tirina sodohda ay ugu tiri hooyo dahabkii meel fiican ma dhigta hooyo meel fiican buu yaala bas markaasaan ilaahayena ku weydiinin baan hoosta kale way timid gabadhi way soo noqotay saadaan u maqlay way timid aan taw idho gurigeedii baan tago waxaan dhoolaalay dahabkii balkeen inaan jaf la soo dhaho birtiisi ku celiyoon dhahdo hooyiga qabo baan rabaa maamadi bas markaas waxay tiri walaalo dahabkii inan baan isku boodnay oo silsiladiina way iga gooday labadii dhagoodna intaan iska bixiyoon inan u dhiibay baa inantii meel alaaliya meel ay la martay dagaalkii dhexdiisa ma garanayo anigii naxdin shock waxaan ku hadlaan garan waaye markaasaa odaygayga markaa inankaan wada joognaa dubay ka shaqayn jiray waan wacay waxaan ku yihi walaalo ada markaa inankeedii baan wacay oo odaygayga ahaa markaas waxaan ku yihi walaalo sidkaasaan rabaa markaad imanayso ha ka soo tegin haya buu yidhi sidkii buu ii keenay sidkii baan markuu saa igu keenaan u geeyo waxaan ku yihi hooyo hoo sidkan qabso sidkaagii anigaa jeclaaday oo dee fudaydkan ku jeclaaday kan uu yaro culus iyo uu yaro waaweyn yahay dadka waaweyn uu ku qurux badan yahay kan adiga qaado gabadhiina ilaa alaana dee malaha way iisoo wadaa ma garanayo ma garatay marka kolley ayada dee markii igu dambeysay afrikaanku ogaa waan iska saamaxay waxba maad aragtay qof aan jaarnahayna way ahayd inkastay markaa heli karaysaa ma ii iibin karaysoon dee inan yar iska ahaayo laakiin waxay igu tirinaysay dadka ladan bay igu tirinayso deeda wax haysato ninkeedu u dhoodhoofaabay islahayd marka saasumaan isleehay
marka kulli waan iska cafiyey, waan iska saamaxay, waxba uma haysto. laakiin weligeedoo dambe wadanka in badan oo dambaan sii joogay imay odhanin waa kan dahabkii. marka aniguna mabaan weydiin, aan iska dhaafay. caruurnimaaba dee haysibu dahaba danba kamaan lahayn. kaygaaban qofkii ii yimaadaba iska siin jiro oon odhan jiray sii qaado, hore u sii qaado, oo markaad yartahay wax saa looma daneeyo. marka is ilaaliya dadow, oo maad aragtay ka taxadara. qofkaad wax siinaysaan kala ogaada qof maad aragtay ammaanada soo celin kara iyo inuu yahay qof aan waxba soo celin karaynin inuu yahay. ma garatay ilaa haddii ka jirta oo lacag haddii lagaa qaada aanad arkaynin, oo haddii dahab lagaa qaada aanad arkaynin. marka videogeena intaasaan rabay inaan jeclaysta inaan idinla wadaago. dhammaantiin waan idin wada salaamay. subscribe, like, comment, share. sidaa iyo videoga xiga. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. meelna na gaadhsiiyey dee idinkuma waxaan idinku nahaya.